Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Dhegeystayaal daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena xulka siyaasadda ee janalka Warcadda Media oo maalin walba noogu barateen inaan idiin soo gudbino barnaamijyo xiiso badan oo ku aadan arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee waddanka ka socda. janalka Warcadda Media waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe noo saartaan isla markaana aad la socotaan barnaamijyada kala duwan aan idiin soo gudbin doono. Qodobada ugu xiisaha badan oo wararkeena barnaamijyadeena ku soo qaadan doono maanta waxaa ka mid ah golaha shacabka ama xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wadaa maanta inay kulan ku yeeshaan xarunta golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kaasoo lagu wado in lagu ansixiyo cutubyo ka tirsan dastuurka ku-meelgaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Haddaba sida uu xaalku yahay iyo go'aanadii hore ay u soo saareen. Sidoo kale 6 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka iyo aqalka sareba ayaa laga mamnuucay fadhiyada soo socda ilaa iyo 12 fadhi ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Asna waxaad ku maqli doontaan isagoo faahfaahsan barnaamijkeenan. Sidoo kale waxaad ku maqli doontaan madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa lagu wadaa inuu markaasi qeybaha kala duwan ee bulshada isagoo hogaaminaya madasha samata bixinta inay kulamo kala duwan ay la qaataan bulshada qeybaha kala duwan oo ku aadan waxyaabaha xaaladaha siyaasadeed ee waddanka uu ka socdo, gaar ahaan inta aan markaasi u furmin shirka lagu wado in markaasi golaha mustaqbalka Soomaaliya iyo madaxda qaranka Soomaaliya ay ku yeeshaan magaalada Muqdisho. Sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ayaa lagu wadaa in maalmaha soo aadan ay soo gaaraan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan. Qodobka ugu horeeya haddii aan gudagalno maanta waxaa lagu wadaa in xarunta golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyay hareeyay buuq ku aadan ansixinta ama wax ka beddelka dastuurka cutubyo ka tirsan, gaar ahaan cutubyada 4 ilaa 9 kuwaasi oo xildhibaanada badan oo ka mid ah golaha shacabka iyo aqalka sareba ay si aad u diidan yihiin in markaa golaha la horkeeno isla markaana la ansixiyo, iyagoo ku doodaya in marka hore heshiis siyaasadeed laga soo gaaro. Fadhiyadii ugu dambeeyay ayaa hareeyay buuq siyaasadeed ee golaha shacabka xaruntiisa ay ku lahaayeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, kaasi oo maanta lagu wado in xildhibaanada markaasi la ansixiyo. Sidoo kale wararka waxa ay sheegayaan in muuqaalo ama sawirro ay heshay janalka Warcadda Media ay muujinayaan in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya lagu celinayo jagaboontiyada gala xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho kadib markii guddoonka uu warqad uu soo saaray kaga mamnuucay qaar ka mid ah xildhibaanadaasi inay yimaadaan fadhiyada baarlamaanka labada aqal ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaa xildhibaanada xaruntiisa ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa booliska ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, iyadoona sawirada la arkayay in ciidamo ka tirsan booliska ay dhooban yihiin wadooyinka gala madaxtooyada iyo Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Sidoo kale warbaahinta qeybaheeda kala duwan ayaa laga joojiyay isticmaalka markaasi in ay gudaha ka soo tebiyaan wararka la xiriira dooda golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya iyo Sacuudiga ayaa waxa ay galeen heshiis difaac ku aadan iskaashiga dhinaca militariga iyo markaasi inay iska kaashadaan arrimaha nabadgelyada, horumarinta kaabayaasha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, sida markaasi lagu baahiyay warbaahinta dowladda Soomaaliya oo ay sheegtay in wasaaradda difaaca xukuumadda federaalka Soomaaliya heshiiskaasi kula gashay magaalada Riyaadh ee wasaaradda difaaca dowladda markaa Sacuudi Arabiya. Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa isna lagu wadaa kadib markii maalintii shalay uu soo gaaray magaalada Baydhabo in uu kulamo kala duwan ula qaato qeybaha kala duwan ee bulshada isagoo hogaaminaya madasha samata bixinta ama madasha midowga musharaxiinta dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasi oo doonaya inay markaasi kala tashadaan kulanka ka hor ay dowladda federaalka Soomaaliya kula leeyihiin gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Sidoo kale wararka ka imaanaya gobolka Bakool waxay sheegayaan in howlgallo ballaaran halkaasi ka dhaceen oo ay sameeyeen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed Soomaaliya ka sameeyeen deegaano hoos yimaada degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, kuwa oo ay sheegeen inay kusoo qabteen baabuur
kala duwan oo ay isticmaalayeen sida ay sheegeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ay sheegeen in markaasi hadda ay kala wareegeen. Wararkaas oo faahfaahsan wararkeena dambe ayaad dib kaga maqli doontaan haddii Ilaahay awood leh uu raalli ka noqdo. Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ayaa lagu wadaa in dhowaan ay soo gaaraan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya si ay uga qayb galaan shirka oo ay la ballansan yihiin ama ay lagu wado inay ku yeeshaan magaalada Muqdisho madasha samatabbixinta bixinta ee Soomaaliya iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Inkastoo aan la ogeyn waqtiga rasmiga ah ay soo gaarayaan, balse wararka hordhacan helnay ayaa sheegaya in dhowaan in maanta ama beri lagu wado in wufuud hordhac ay soo gaaraan magaalada Muqdisho, kuwaasi oo ay ka mid yihiin ilaalada gaarka iyo borotokoolka iyo sidoo kale xubno markaasi ka tirsan labada madaxtooye ee dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland si ay markaasi uga qayb galaan shirkaasi. Balse madaxda labada maamul ayaan si rasmi ah loo ogeyn waqtiga ay soo gaari doonaan gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Guddoonka Golaha Shacabka ayaa maalintii shalay soo saaray warqad ay ku qoran tahay 26 mudane oo ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kuwaasoo laga mamnuucay fadhiyada baarlamaanka dhowaan soo socda oo uu ka mid yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, kuwaasi oo laga mamnuucay inay yimaadaan kalfadhiyada baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxaa arrintaasi si aad u cambaareeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ay la hadleen warbaahinta kala duwan ee dalka, iyagoo sheegay in guddoonka Golaha Shacabka uu si cad ugu xadgudbayo ama uga tumanaya sida ay hadal ku dhigeen xeer hoosaadka ku-meelgaarka ee Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, iyadoona xarunta Golaha Shacabka la arkayay in ciidamo ka tirsan kuwa booliska ay joogaan si ay markaasi u ilaaliyaan nabadgelyada iyo habsami socodka shirka Golaha Shacabka ee maanta lagu wado inuu ka qabsoomo gudaha magaalada Muqdisho, iyadoona lagu wado in xildhibaanadu ay ansixiyaan dastuurka qodobada 4 ilaa 9 ee ku-meelgaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ilaa hadda guddoonka ayaan war cad ka soo saarin xiisadda siyaasadeed ee ka dhex taagan Golaha Shacabka. Ilaa iyo ku dhawaad 50 mudane ayaa laga joojiyay inay markaasi fadhiyada kala duwan ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya ay yimaadaan. Haddaba dhegeystayaal iyo daawadayaal, waxaa intaa kusoo gabagabeynaa barnaamijkeenii xulka siyaasadda ee janalka Warcadda Media. Intaan barnaamijkan lamida dib hawada ugu kulmi doono muuqaalkiisa xiga, sidaas iyo nabadgelyo.